بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وخليف عبد عمر حلوان خليف عبد عمر laga soo doortay maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan ka mid ahay xildhibaanada cusub taramka koowaad soo galay inay u adeegaan qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed waxaan ka mid ahay dadka isbedel doonka ah xildhibaanada isbedel doonka ah waxaa jirtay isbedelka iskama yimaado waa laga shaqeeyaa waa la abaabulaa dhibaatadeedii iyo baahideedina way taagan tahay markaan ognahay dalka heerka uu marayo ayaa maaragtay waxaa noo soo baxday dareenkii shacbigeena inaan ka tarjumno aniga shakhsiyan waxaan ahaa xildhibaankii ugu horreeyey afti weydiiyo xildhibaanada constituency-ga ama dadkii shacbiga aan matalayay dadkii ugu horreeyey afti weydiiyo codkayga online soo dhigay qoraal soo dhigay u sheegay waxaan rabaa taladiina talana way ka soo bixiyeen laba noocan waliba codsiga u gudbiyey mid Soomaaliyeed maadaama aan ahay xildhibaan qaran mid Soomaaliyeed iyo mid regionkii iyo deegaanka ka soo jeeda labo afti oo kala duwan aan gudbiyey labada aftina resultgeeda waan helay wuxuuna ku bees gareysan yahay isbedel doonkan ilaahay amarkiisa uu isaga yimid numberka website-ka all banaadir aan ku publish gareeyey oo ahaa inaan iraahdo hala codeeyo si sax ah loo codeeyo anoo liiska murashaxiinta madaxweynenimo dhammaantood liis gareeyey codeyntii resultgeeda waa la helay labadii bishii January ayaan gudbiyey qoraalkaas labadii bishii February-na waan xiray marka dadka soo codeeyay waxay ahayn 41,000 iyo 51 shakhsiga oo codeeyana waan aqaana waana u codeyn doonaa insha Allah codka meesha sanan shacbigayga rabitaankooda aan matali doonaa insha Allah oo si sax ah marka muhiimku waxa waa isbedel doonanahay shacbigana isbedelka waa maaragtay hogaani ka yihiin iyagii inaan raaco oo follow gareeyo aan ku qasbanay xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay isbedelka hal raaco hal taageero guuxa waa dareemayna xildhibaanada waxaan ognahay rabitaanka shacbiga yaan la dafirin rabitaanka shacbiga hana la raaco shacbigana waxay rabaan kelmadaan rabaa inaan beeniyo khaliif cabdi cumar anoo ah xildhibaanada qaranka ka mid ah mar labaad waxaan Facebook iyo maaragtay social media xalay habeen hore ka arkayay in la leeyahay wuxuu ka mid yahay xildhibaano uu u hanjabay Ethiopiaanka wax ka jira malaha Ethiopian soo waco iyo hanjabayna ma jiro marka ma garanayo aniga sabab liigu hanjaba dalkaygaan joogaa rabitaanka shacbigeena waa ka shaqeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaah